madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay warqad qoraal oo maalintii shalay ay soo saareen xisbiga mucaaradka ee wadani taasi ay kaga cabanayeen xubno kamida kuwii uu soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu madaxweynuhu ku sifeeyay inaanu go'aankaasi ahayn mid u yaala balse laga dhursugayo go'aanka ka soo baxa golaha wakiilada waa kan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo arrimahaasi tilmaamaya shalay wuxuu soo saaray qoraal xisbiga wadani waxay ka cawdeen xubnihii komishanka Soomaaliya siday xabli qofku wuxuu dareemo la kala baqan meeno raayigaygu haduu kaaga ka duulay soo daa si asbuulaysan oo soo daa kaliyaana raayiga malihi ana kaliya malihi waxay ka cawdeen oo yiraahdeen madaxweynuhu saddex kuwii magacaabay ee daasanta sharci waxa weeye sidii hore u raacayna waanu kala raayi duwanahay hal tuurna ayaan la toosan labada xisbi mucaaradku way fikiraan waxay keeneen labada xubnood ee sharciga iyaga soo jeediyeen kuma faragelin raayigooda waayo cilmi baa u dambaysa sharciga inteedaba dib u jaagaraysa sida ahaydna guurtuna way keentay labada ayagu door bideen hawsha soo baxaya iyana kuma faragelin xeerka inta la socday أول ما تشوف من أمر طلعه هذا حتى حقوسه وحقول هذا الحزب ومراه أرنتها شرعي سافر فوق بارمان هو وصل دولارين هكذا كسر بدنا مور لو هذا احترامي أنا أنت شرعي بيصوف بنصوف وانصوف محكمة بلغيني يا تذكر محكمة هو برلمان كان ليه شرعي الدكتور هذا حسين تذكر السوق مدحوله سوق بيقال كل سوق صدري شرعي موافقسيه شركتون كبرلمان كوبوله أرنتها معها أوده وحرام ولو وينها برلمان ويفاقدي ويكدودي ودي بقى وصاري مركز بعض القاضي وحي أي سوء عليها هذه أنا اللي بسوء عليه كوي أنا مقعابي هي هذه الحزب اللي بسوء عليه علمها كل بالك كذا ورصه وايش شرعي ساوي هذا يسوى دايانا وأودودي حزب وحو أريد رؤية ودمي باقي من حول تصاير أنت تصاير بيها وحو شرعي وحو إما كان أودك عن تلك التسارق هو على مكرام برمان يوتانا ولو وينها من توتانا وحلوه الوصول صار الله مخلص أصله وأنا أقبله باحترام هذا يسوى عليها وأبدي dhinaca kale waxa uu madaxweynuhu mar kale sheegay in guud ahaan xaaladda ku gadaaman doorashada Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada aanay go'aankeeda lahayn xukuumadda amba guud ahaan qaranka Soomaaliland balse ay beesha caalamku soo faragelisay kadib markii ay Soomaaliland iska bixin kari weyday lacagaha lagu gala doorashooyinka sidaasi darteed qaadaan ay ku soo darsadeen beesha caalamku taladana gacanta la soo galiyay waa kan madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya dhaqaale badan oo baahatay نعسمه ويبين عيسو دورشين إنه مسافر قرر هنا تانو كقيم قانون سوت تقول العكتين دورش حرة ويسوال لاد بحسي وعند مسافر جوا كار كارنا عشان مليون توربيون وهلي كارنا هذه الله قربه لكن ما دعينا دولة بحياة ولا دولة العكتها ما هيسو ترى نبى حوين نقرب بحياة إن لا يشت هالدين وفرحنا بنجنا كسران عصمه dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu dadka shacabka iyo waliba gobolada iyo degmooyinka kala duwan dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan uu sheegay xaaladaha doorashada ku gadaaman iyo gaar ahaan deegaanada laga soo dooranayo xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka waa kan mar kale madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya Soomaaliland waxa laga rabaa doorashadaas oo loo qabna ku galno khilaaf iyo dhibaatana aan loo keenin dheeraada sida adduunku wuxuu doortana aad wuxuu doorano ee ay naasleeyeen ku raaceen imika jirbiyo tuulituul isku diin taasaan ka maqsanaya ay baray baashaas loo geerinay ay maanta u fayoorahay wada galaa idagoo hubna inay khilaaf iyo balaayo loo keeno wanaag iyo horumar ay loo keento ay ka tashado qofna ay su'aal soo diina ka kursiga doona sharxaniya joogo marka loo eegana shuqulkeedii degme iyo tuulituul inaanu kala nabad galana waan idin ka codsanayaa mar walba waa idin ka qabaa dhaqankeena markaan eego
inkastoo xubnaha xisbiga mucaaradka ee wadani ay ka cabanayeen ay ahaayeen xubnaha uu soo magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi 2 xubnood oo kamid ah haddana madaxweynuhu eedaasi waa uu iska leexiyey madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbadaasi dhinacyada badan taabanaysa waxa uu ka jeediyay xaflad ay lahaayeen mid kamid ah wasaaradaha dalka oo uu ka qayb galay balse madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu caan ku noqday muddooyinkani ugu dambeeyay inta badan madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu guud ahaan xaaladaha guud ee dalka markaste kaga hadlaa meel ka baxsan xafiiskiisa madaxtooyada inta badan xaflado lagu soo marti qaaday oo ay kamid yihiin kuwa wasaaradaha xafladaha qalinjaminaha safarada uu baxaya madaxweynuhu iyo meelo kale balse inta badan kagama hadlo xafiiskiisa xaaladaha dalka maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa ee Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir telefoonka iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda Djibouti so good.